Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhageystow ma lagugu sheegay burobiyoodkaaga taal ugxan-sidaha adigoo check-up samaynayo wax xanuun ahna aysan kugu haynin. Dhakhtarka ma ku dhahay wax dhib ah ma keento buradan, iyadoo saas ay tahayna daawo ma kuu qoray. Ma ka walwalsan tahay inay buradan isbedesho oo xanuun kale noqoto ama ma dhaleys kaa dhigto? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ay ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Burobiyoodka ku samaysma ugxan-sidaha afka qalaadna lagu dhaho ovarian cyst waa xaalad aad ugu badan dumarka, khaasatan kuwa da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 40 sano jir. Burobiyoodku waa kiish ay ku jiraan dareere dabiici ah oo ku dul samaysma ugxan-sidaha, badanaa si dabiici ah ayay ku timaadaa, wax astaamo xanuun ahna lama dareemo, daawona looma qaato. Sida sawirka ka muuqdo, ugxan-sidaha waa labada xubnood ee farfaraha leh ee ka sarreeya minka, waxay ku yaalaan labada dhinac qaybta hoose ee uurku jirta. Wuxuu soo tuuraa ugxanta 28 maalmoodba mar, taasoo qayb ka ah wareegga caadada. Ugxan-sidaha wuxuu kaloo soo daayaa labada hormoon ee taranka qaabilsan dhinaca dumarka ee estrogen iyo progesterone. Burobiyoodka hal ugxan-sida ayuu ka soo bixi karaa ama labadaba. Burobiyoodka ugxan-sidaha waxaa loo kala qaybiyaa labo. 1. Burobiyood ka dhalatay shaqada ugxan-sidaha taasoo samaysanto xilliga caadada, waana arrin dabiici ah oo dumar walba ku dhici karta. Badanaana usbuucyo kadib way baaba'daa, wax daawo ahna looma qaato. Xanuuna badanaa ma keento, waxayna dhakhaatiirtu ugu yeeraan simple cyst, waana nooca ugu badan ee dumarka lagu arko, waxaana ku dhex jira dareere keliya. Midda labaad waa burobiyood cillad ka dhalatay, waana buro ay ku jiraan dareere iyo unugyo aan dabiici ahayn. Tan waxay isu beddeli kartaa xanuuno kale, qaar ka mid ahna kansar ayay noqon karaan, waxayna dhakhaatiirtu ugu yeeraan complex cyst. Buradan waxay u baahan tahay baaritaano dheeraad ah si looga shaki baxo, sidoo kalena la socosho ay u baahan tahay, wayna dhici kartaa in daawo lagu qoro. Marka haddii ultrasound lagu saaray, burobiyoodna lagugu sheegay, waxaad dib ugu laabataa report-kaaga, waxaadna ka fiirisaa inay ku qoran tahay simple cyst ama complex cyst si aad u fahantid nooca lagugu sheegay. Badanaa dumarka ku jira xilliga dhalmada, burobiyoodyada lagu sheego ee ugxan-sidaha ku samaysma 90% kansar ma noqdaan. Laakiin haddii haweentu gasho xilliga dhalmo-deyska laguna arko burobiyood, waxay u badan tahay nooca labaad oo kansarka noqda. Sidaa darteed waa inaan la fududeysan. Baaritaanada lagu ogaado cilladan waxaa ugu horreeya ultrasound-ka, kaasoo kuu sheegi karo burobiyoodka kugu yaalo noociisa. Kadib haddii laga shakiyo, wuxuu dhakhtarka kuu diri doonaa baaritaano isugu jira dhiigag iyo dheecaano xagga hoose laga qaado. Burobiyoodka aan dhibka lahayn simple cyst daawo uma baahno, laakiin haddii ay aad u weynaato oo xadkeeda ka baxdo, waxay keentaa xanuun iyo cadaadis ubucda iyo miskaha, xanuun la dareemo xilliga galmada, dibiryo, kaadi badan iyo caadada oo lagu dhiig baxo. Markaasi waxaa lagu sameeyaa qalliin haddii aysan kaligeed dillaacin. Mararka qaar haddii buradu weyn tahay, waxaa dhacdo inay maroojisanto, taasoo dhiigga ka xiri karto ugxan-sidaha iyo tubada, waana xanuun halis ah oo xalkiisu yahay kaliya qalliin degdeg ah. Haddii burobiyoodka ay tahay nooca dhibka keeni kara ee loo yaqaano complex cyst, baaritaan kadib dhakhtarka daaweyn iyo la socosho ayuu isugu kaa dari karaa, taasoo ay muhiim tahay in kombiyuutarka dhowrkii usbuucba lagugu celiyo. Haddii aad ku jirtid xilliga dhalmo-deyska oo ay caadadii kaa guurtay mar hore, laguguna arko burobiyood, jaaniska in burobiyoodkaasi isku beddelo kansar wuu badan yahay. Sidaa darteed waa muhiim in dhakhtarka si dhow kuula socdo, laguna marsiiyo baaritaanada looga shaki baxo kansarka ku dhaco ugxan-sidaha. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya casharkan. Wixii su'aalo ah noogu dhaaf qaybta comments-ka ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.